أنا وأردنا reer Puntland qaybo kamida waxaan maanta ka hadlaynaa muujinayna dareenkeena ku aadan shahadada qaranka ka dhaxaysa ardayda Soomaaliyeed oo dhan anagu ardayda reer Puntland waxaan doonaynaa inaanu galno imtixaanka qaran ee shahadiga ee dawladda federaalka Soomaaliya warso Soomaha madaxweynaha Puntland waxa leenahay madaxweyne anagu kuma qancin doono wax kasta khudbad dhaweyd oo maalinta ka hashay waxyaalaha halmaama madaxweynuhu wuxuu sheegay inaan shahado qaran ayna jirin kaliya uu soo qaatay baasaboor madaxweynuhu waxa leenahay shahado qaran waa jira annagana u baahan الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa fikirkayaga ama ra'yigayaga ku aadan maalmaha kan isjiidjiidkii jiray ee dawladda dhexe iyo dawladda Puntland oo annagoo ah bahda waxbarashada Puntland wax ka barata ee secondary-ga waxaanu anagu u baahanahay oo kaliya waxay tahay Soomaalinimo ayaana deeqda waxaanu u baahanahay waxay tahay in Soomaali midaysan imtixaan midaysan shahado midaysan laga wada qaato dhamaanteed waxaan u sheegayaa maamulka Puntland inay ka fiirsadaan aayaha dambe ee dhalinyarada wax baranaysa waxaan leeyahay dacartii aan soo marnay 30 sano soo daaqnay nala ku cilmaayo dibna loo ku cilmaayo waxaan u baahanahay imtixaan midaysan shahado midaysan shahadada Soomaaliya qiimaha ay leedahay annaga ayaa naqaan nala tusi maayo meesha annaga dantu loogu jiro waxaan dad wax soo baranayay 12 sano uma baahnin in la tuso meesha naloo jahaynayo ama danteedu ku jidho waxaan leenahay dawladda federaalka iyo mudane Godax Barre qorshaha aawado waa qorshe ay kula qaadsan yihiin dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dawladda federaalku siday isugu hawlshay hawshaas oo ay u wado annaguna waxaan leenahay ardayda Puntland haddaan nahay waxaan u baahanahay imtixaan midaysan iyo shahado laga sameeyay Soomaaliya ha waxaan dawladda Puntland iyo maamul goboleedka ka codsanayna in loo tanaasusho dawladda qaranka ee dawladda dhexe ee Soomaaliya si imtixaanka midaysan oo qaranka aan la galno walaalaha Soomaaliyeed Soomaaliya ha guulno anoo kamid ah ardayda wax ka barata Puntland waxaan halkan ka sheegayaa inaan u baahanahay imtixaanka federaalka kaas oo shahaadadiisu tahay sumada ardayga Soomaaliga ee wax bartay wasaaradda waxbarashada Puntland waxaan ka rajaynaynaa inay u tanaasuli doonto danta qaranka imtixaanka Puntland waa subaayada quraacda lagu sugayay marba haddii imtixaanka qaranku yimi waa inuu noqdaa taariikh la soo maray ma aha mid hadda la marayo 2020 ka sii jiraya maadaama fafaalo dawladnimo ay bilaantay oo Soomaaliya hal meel u socdo hadafkeenu waa arday siman oo galay imtixaan siman si uu helo deeq siman waxaan maanta u laangoyn ardayda fikirka qabta inay kor u sheegi karaan sharciguna u damaanad qaadayo in qof kasta fikirkiisa qaban karo Soomaaliya ha noolaa halkan yani maanta wax بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkan xeetolay ku cabirayna dareenkay ku aadan waxyaabaha yamaankan ka socda xeetolay maamulka Puntland iyo dawladda dhexe xeetolay Soomaaliya taasoo ay xeetolay muran gelisay Puntland xeetolay shahadada iyo waxbarashada xeetolay ardayda wax ka barata Puntland waxaan halkan xeetolay fariin uga dirayaa maamulka Puntland iyo xeetolay dawladda federaalka Soomaaliya haddaan ku horeeyo Puntland waxaan leeyahay xeetolay dad maanta aqoontooda gaarsan tahay ilaa xeetolay heer dugsiga xeetolay 12 sano soo baranay uma baahna maanta in wax loo tilmaamo iyaga maanta loo tilmaamsanaya xeetolay waa dad xeetolay ku filan aqoontooda iyo cilmigooda ku filan yahay dad u tilmaami karaan shahaado Puntland Uganda dhigtay waxa dad u tilmaami karaan maahan waxa kale dawladda federaalka ka codsanaynaa in xeetolay hawsha aad wadaan waa hawl sax ah maadaama nala doonaysaan xeetolay wax siman in dadku shahaado siman helaan dadku waxbarasho siman helaan manhaj siman la helo waxaan aad iyo aad u taageerano haddaan nahay ardada xeetolay ka bartay iskoolada kamid iskoolada Puntland xeetolay ahna ardada koonfurka waxaan u sheegaynaa inaan ka soo horjeedno maamulka Puntland waxyaabaha uu ka wado oo waxbarashada ah marka waxaan doonaynaa haddaan nahay ardada Soomaaliyeed wax Soomaalinimo in wax lagu qaato anaga Soomaalinimada ayaa nagu filan waxaan Soomaalinimada siisanayno ma hajido Puntland waxaan xeetolay u sheegaynaa inay ka digtoonaato waxyaabaha ay ka wado ayama waxbarashadii baa la isugu soo dhuntay marka ayamaada wax kale tagaysaa anaga waxaan doonaynaa marka wax midaysan baan rabnaa Soomaaliya ha noolaato ardayda wax ka barata Puntland waxaan ahay arday foonfoora dugsiga sare sanadka ugu dambeeyo waxaan ka codsanayaa in wasaaradda waxbarashada Puntland ay u tanaasuso wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliyeed waana hanti qaran waxa kan waxbarashadan waa mustaqbal qaran waxaan rabnaa shahado qaran